kulan aboonida lahantiinba ku soo dhawaada channelkan Shariif Show qodobada ugu weyn aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya Ra'iisul Wasaaraha Ingiriiska Keir Starmer oo markaas raali gelin buuxda bixiyay kadib xilli dood adag ay ka dhalatay haddaba maxaa sabab u ah in Ra'iisul Wasaare Keir Starmer uu markaas raali gelin u diro dadkii dhibanayaasha ahaa waa maxay sababta Starmer uu ku sheegay in uusan isla xisaabtan degdeg ah oo ka sameyn karin marxaladaha hadda halkaas ka jira saameyn intee la eg sida ayuu Starmer markaas uga hadlay faylasha Mandeloska oo waliba ah kuwa aadka u xogan oo waqtigan si adag looga tilmaamay in dunida inteeda badan ay haysa waxa sidoo kale aad ku dhageysan doontaa warbixin cusub oo muujinaysa in ka badan 90% kobaca maalgashiga ee Shiinaha oo markaasi sare u kacaya ama sare u kaca ku yimid xilli tamarta nadiifinta iyo waliba korontada qoraxda lagu isticmaalo gawaarida iyo waliba sidoo kale qiimaha ugu kobaca badan ee dalkaasi waqtigan oo u muuqato in talaabo muhiim u qaadi kara Shiinaha oo wali markaasi soo saaraha ugu weyn dunida inteeda kale markaasi loo yaqaan aaladaha kasta oo laga isticmaalo dunida ayaana looga dambeeyaa mashruuca militariga iyo waliba sidoo kale furitaanka Star Wars loo yaqaano Steel sharing oo Shiinaha si adag markan ugu loolan yahay awoodiisa military ayuu markale u muujinayaa in ay tahay mid aad u xoogan oo walibana wax soo saarkiisa ayuu haatan la daladhacay iyadoo oo markaasi talaabada uu qaaday Shiinaha u muuqdo waqtigan in qorshe adag uu isna si dheeranayo iyadoo dunida qaybaha kala duwan si xoogan markaasi ay ugu wada hadalhayeen qodobadaasi waliba wixii kale nagu soo kordha caalamka iyo Soomaaliya ayaan ku faaqidi doona markuu hore waxaan ka dalbanaya inaad nagu soo biirto ka mid noqoto saaxiibadeena ku xiran channelkeena Shariif Show aan ku bilaabay Ra'iisul Wasaaraha Ingiriiska ayaa raali gelin ka bixiyay Keir Starmer ayaa sheegay in uu markaasi la wadaagayo carada dadka markaasi uu dareemayaan kadib markii uu markaasi xilalka hayay ka baxsanaa isla xisaabtanka taasi oo muuqata in talaabo adag waqtigan uu ka qaadi doono wuxuuna sidoo kale uu sheegay in uu doonayo in faylasha Mandelos uu markaasi sii daayo sidoo markaasi ugu dhaqsiyaha badan suurtagalnimada isaga oo intaasi ku daray in ay rabaan in uu arintaasi ka hadlo shalay ayaana loo diiday waana sababta keentay waqtan inuu si xoogan uga caroodo walibana lagu tilmaamay in qorshaha ugu waaweyn ee waqtigan uu damacsan yahay si kastaba ha ahaatee wuxuu sheegay in talaab waa markaasi talada booliisku ay markaasi u horseedi karto maadaama suurtagalna ay tahay in arintaasi saameyn ay ku yeelan karto baaritaanada mustaqbalka ama markaasi habraacyada sharciyada ah wuxuuna sidoo kale tilmaamay arintaasi mid niyad ku ah dhinaca shakhsiga ahaaneed iyo waliba sidoo kale wuxuuna ku adkaysay inuusan qaadi doonin talaabooyin siyaasadeed ahaan iyo waliba mid soo jiidasho yeelan karto oo halisna gelin karto hadalada waa markaasi helida cadaalada diblomaasiyadeed iyo waliba dhibanayaasha ugu waqtigan wajahayo Starmer wuxuu sidoo kale dhibanayaasha Epstein oo markaasi la noolaayeen buu yiri dhaawacyo nafis ah oo intooda badan ayaana markaasi xitaa qiyaasi karin ayuu yiri isla markaana ay u arkaan isla xisaabtan dib u dhacay marar badan gabi ahaanba ayaan markaasi ka didnay waxaana sidoo kale ka xumahay in ay markaasi la sheegay dhibanayaasha waqtigan oo aan waxba loo qaban karin xilli markaasi uu ku tilmaamay ayuuna si adag ugu jawaabay isagoo loolankiisa ku sheegay hadaba wararkii ugu dambeeyay Shiinaha oo iyana markaasi hadii aan eegno korarka maalgashiga tamarta nadiifinta warbixin cusub oo ay markaasi soo saareen ayaana ku muujinayda in ka badan 90% kobaca maalgashiga Shiinuhu in sanadkii la soo dhaafay ay markaasi yimaadeen wasaaradaha tamarta nadiifka sida markaasi Patrice gaadiidka korontada qoraxda iyo waliba dabaysha qaybo muhiim ugu ah kobaca dhaqaale ee dalka halkaas ka jira Shiinaha wali wax soo saarkiisa adduunka ayaa u muuqata inuu yahay dalka ugu wax soo saarka badan waqtigan jooga Shiinaha ayaan markaasi la xaqiijiyay in uu yahay soo saaraha weyn ee dunida adduunka iyadoo markaasi heshiisyo cusub la saxiixday in ka badan markaasi ka badan yihiin aandhe 90 iyo aandhe markaasi 69% amarada cusub ee dhismaha doonyaha adduunka ee la jaan qaadi kara waqtan mashruuca military ayaa sidoo kale ka marnay in Shiinuhu waqtigan si adag ugu loolan yahay talaabadiisa kaga aadan ayaana ilaa haatan la tilmaamay wararka ayaana sheegay in Shiinuhu markaasi soo bandhigi doono fikirka markabka dagaal ee adduunka ugu sareeya mustaqbal ahaaneed iyo waliba sidoo kale loona yaqaan magaciisa Lanio kaasi oo markaasi la filayo in uu qaadi karo diyaaradaha duuliyahan lahayn iyo waliba gantaalada ridada dheer ee qaar kamida falanqayaasha ayaana oranaya intani ay markaasi
markaasi ay muhiim u noqon karto ama muuqaal ahaaneed loo qiyaasi karo Botgrass Kenners nin la yiraahdo oo welibana si adag loogu tilmaamay talaabadeeda ayuuna si adag waqtigan ugu sii ambaqaadaya welina ma jirto qorshe cad oo ilaa ay haatan u limaday ciidamada Shiinaha ayaana markaas ku dhawaaqaya tababaro military oo agagaarka ee jasiiradda Taiwan oo talaabooyinkii ugu dambeeyay halkaasi ay ka qaadayso iyadoo Taiwan Shiinuhu si xoogan loolan ugu la dhaxeeya waana qorshaha ugu adag ee waqtigan la qorsheynayo sidii looga hortagi lahaa marxaladaha kala duwan ee Shiinaha iyo waliba sidoo kale Taiwan oo qayb ka mid ah dalkaasi waqtigan talaabo culus ay kala dhaxeeya wararka caalamka ee Soomaaliya kala socotaan channelkan Shariif Show waad ku mahadsantahay ilaa dhamaadka hadaad ila soo gaartay waxaan ka dalbanayaa inaad ku soo biirto channelkan Shariif Show mahadsanidin